madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalaqadka telefoonka kula xiriiray dhigaysa dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday meel marinta iyo sidoo kale dardargelinta heshiiska dhinaca difaaca ee labada dawlad kala horay wada gaareen madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku wargeliyay in maalmaha soo socda ay dalka Soomaaliya oo gaar ahaan xeebaha ay soo gaari doonaan maraakiib ka socda dalka Turkiga isla markaana difaaci doona midnimada iyo sidoo kale cid kasta oo ku soo xadgudubta badda Soomaaliyeed labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla soo qaaday heshiiska dhinaca shidaal soo saarista ee 2025 la filayo in laga soo saaro Soomaaliya oo dawladda Turkiga ay sameynayso shirkad ka socda dalka Turkiga ayaa sidoo kale soo gaari doona Soomaaliya isla markaana soo saari doona shidaalka gudihiin meel ka mid ah dhulka Soomaaliyeed labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay si loo sii xoojin lahaa iskaashiga labada dal ee walaalaha iyo sidoo kale isku xirka labada shacab ee walaalaha oo runtii ah laba dal oo muslim ah xiriir fagna u ka dhaxeeya dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliyeed labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla soo qaaday sida markaasi loo sii xoojin lahaa heshiiska dhinaca difaaca oo dawladda Turkiga ay kor hor la gashay dawladda Soomaaliya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay in baarlamaanka dalka Turkiga uu si wada jiro u meel mariyay heshiiskii markaasi dhinaca difaaca ee kol hore ay wada gaareen Soomaaliya iyo Turkiga haddaba daawade aad iyo aad u maasantahay halka nagala soco wixii warar ku soo kordha heshiiskaas iyo sidoo kale maraakiibta la filayo maalmaha soo socda in soo gaaraan dalka Soomaaliya iyo wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa fadlan page-kan aduusan ciwaan maaragtay usan follow ku ahayn si follow gare sidoo kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa YouTube-keena ama channel-keena YouTube-ka ee dambaalka dunida sidoo kale barteena TikTok intaba warar sugan iyo sidoo kale warar xaqiiqo ku saleysan ayaad ka heli kartaan aad iyo maasantaa wada ilaa xilligan hadda la soo gaartay aad iyo maasantaa